السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ميل كستو أجوكتان إيه سكستو آتنو داوانيسان موضوعيو آد وحيسا بدن أيان إذنكو هيا برنامج كان إيه صادركا داوده ولي مكو فكرتي إن دعوين كآد كو دعيستيد أي قيبتود أي حبار أي أيهين داد كالي مقالة نيروبينا دادكو وحا أي كعاقينيهين إن أي استابتان أما جيركودو استابتو إياغو كبقا قبا أرنتان خطر تيدا ودتا gabadhan aad ku daawan doontaan barnaamijkana waxa ay aaminsan tahay in wiilka lagu xusho jacaylka ee aan lagu xulan lacag in natiijadeedu ay noqon doonto sida soo socota oo aad ku daawan doontaan barnaamijka fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aad ku cusub tahay page-ka iyo channel-ka Bulqaas Media ha ilaawin subscribe like iyo follow inaad na soo tiraahdo haddii si aad tahay macmiil soo noqday hanaga ilaawin in mowduucan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto dhinaca commentiga waxaad noogu soo qori kartaan sida aad u aragtaan barnaamijkan aaraadiina iyo waliba fikradiina aan gudo galo barnaamijka daawade wali ma ku fakartay in ducooyinka aad ku duceysato qaybtood ay habaar ay u yihiin dad kale haddaba fanaanka ina dalmar oo mar booqday magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa arintan qabsatay isaga ayaana inooga waramaya hadda kor anigoo bajaaj saaran xamar jooga laba sano ka horeeda aan malayna bondheer aan malay bondheer u socday asna dhiigluulen degay ma ogi markaas kulayl ahayd maarse waxaas ahayd markaas rab yara sheekh soo la markaas allah ilaahu rabka noo soo badi allah ilaahu rabka noo soo badi kulaylana dile yarku ulay aba ma naga deysay aniga degan oo gurigeena habeenkii oo roob yimaado alaabtu laga qaaday isla markiiba niyadda waxaan ka ilaa astaghfirullah marka ilaahu kuleelkiga lii qaatay marka waxaad ku duceysataa qof ay habaarkiisa waa muhiim marka aad duceysanayso in aad oga taxadarto haddii kale sheekadan ina dalmar ku dhacday oo kale ayaa kugu dhacaysa haddaad duceysanayso hoos u duceysa وهاجاج إنه كسي سعنا برنامجك ما أقصونتهن دا وضيال إن مقالة نيروبي عاصمة دا ودنك كينيا قارهانا دقمدا صومالدو أي دكتو أي أوبادان تهي أي إسلي إن دادكو أي كعاقينيهن إن أي استابتان سببتا أي أديدينيهن دادكو إن أي استابتان إي خطرتا أي كبقيان بلوحا إنو فاهينيسا قبضان saaka anoo baska ka soo dagay oo toonka soo galay waxa arkay qof dumar ah oo Kenyan ah oo dhulka ku rafanayso oo maartay la dhacay oo ayada dhan wax badan laga furtay oo maartay rafaad badan gaaray arkay qofta dumarna waxa ku dhacday wadada ayadoo marayso just qof leh wuxuu ku dhahay wadada markaa goynaysa ma iska fiirisid garabka bas uu saawnga taabtay wadada markaa goynaysa ma iska fiirisid bes xirmad bes maxay dhacday markaa Samiiri ugu dambeysay وابصدي laga dhacay telefonkii laga dhacay wax badan meesha askara joogtay yaani rafaad badan baa meesha ka muuqday arinka ku dhacayna waxay daydo saan la garabka looga taabtay waana saaqmatayba arintaasna way jirtaa magaaladan qofkii wali isku noolaa jira laakiin aan ku sheego siyaaba isku badbaadi leh hadii lacala aad dareemayso waxyaalahaas amal inay kugu dhacayaan kooda Soomaalida atoonka imaatay waxaa laga yaabaa inaa maartay ama mar walba imaan jirtay ama aadan mar walba imaanin laakiin waxa la hadlaa dadka oo dhif marmar imaadaan haddii aad dhunsan tahay aadan meel garanaynin qof iska socda waxna ha weydiinin dadka meelaha ilaaliyo washmaan meel dhahaa mase security guard-ka oo dabaqayaasha dhaadheer oo xafiisyada ilaaliyo aan la weydiiyaa wadada okay waliga qof maash ismeel iska socda ha weydiinin because dadka badankood tuuga iyo waxay u badan yihiin maaragtay dad inay ku dhacaan lug iyo laba ka gooyaan u badan yihiin haddii aad dhunsan tahay just security guard u tag qof caadi ah ha u tagin teeda labaad haddii qof dumar tahay in shareerkaaga xirnaaw ama mask xiro okay because hada gabadhaas wax lagu taabtay waa wax ur leh sankaagan buu taabana miirkaaga waa u tagaa haddaa mask xiranta ama haddaa indha shareer xiran tahay waa badbaadsantaa meeshaas haddii aadan xirnayn ama aadan xiran karin dhahno immediately horta qof hadduu ku taabto
without your consent adigoo ogolayn inuu qof saan ku taabto immediately gees istaag immediately wadada ka bax qof hadduu si saana ku taabtay aad dareemaysa si uncomfortable ku taabtay qof hadduu garab kugu dhufto kugu dhaco iyo macquul waay laakiin haddaad dareentid qof inuu ku taabtay oo si ama dhag dhowr mar uu ku sii ama si uncomfortable ah uu korkaaga u taabtay immediately wadada ka har gees u bax wadada ha ku sii socon gees marka u baxdid meel ama dukaan ah ama meel maartay xafiis ama building ku leexo meesha istaag immediately biyo soo qabso cab biyo cab fariiso just fariiso boorsadaada qabso fariiso qof hadduu ku ag joogana u sheeg xoogaa waa wareeroyaa dheh waa hagaag waxaan filayaa in talada gabadhani aad qaadan doontaan soomaalidiina ku dhaqan magaalada Nairobi bal isku badnaada xaaladdu waad aragtaan oo ma fududa aynu ku sii soconno barnaamijka ma dhaba in wiilka lagu doorto jacaylka ee aan lagu dooran lacag in natiijadeedu ay badanaaba ay noqoto sidan gabadhu ay sheegayso bal aynu dhageysano naabal la socda naagtan waxay soo qortay jacaylka dooro nayahay dadka jarka ka tuurado wada jarka ka dhacay yaa saaxiib jacaylku wuxuu yimaadaa guurka ka bacdi wiilku sagiba gaajoona muxuu ku siin deha caruur mu ku siin tuulay mu ka dhigay digaagad هذا شرع يا الحاجة جوجو بلا الحاجة جاجون قر على شو كويس وين مسكينة عيل كدورة ورا دورة بس كلا العقد ما أنا ما حد سبب ما إنك هي أنا جايل كده دورتي عفوا يروجي كده الواقع شرع يا السيكة كده ولا دورة جايل waa hagaag gabadhan waxa ay la dhacsan tahay oo ay rabtaa bal fikirkeeda in ragga marka ay xulanayso ay ku xulato lacag oo aysan ku xulan jacayl gabaray adiga i daawanaya maxaad ku xulan lahayd qofka nolosha aad doonaysid in aad la wadaagto jawaabtiina fadlan noogu soo qora dhinaca commentiga waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad mowduucan ama barnaamijkan aad u daawanayseen waxaadna kala socoteen janalka iyo page-ka Bulqaas Media haddii aad ku cusub tahay fadlan hanaga ilaawin subscribe like iyo follow inaad na soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday in aad mowduucan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto aad noogala shaqay dhinaca commentiskana waa dhiirigelin ayay noo tahay oo talooyinkiina aad ayaan ugu diirsanaa waad mahadsantihiin inta aan barnaamijkan oo kale aynu ku kulmi doono oo walaalkiin Cabdirasaaq Bulqaas oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo